kulan wacana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka warbaahinta xogta dalka. qodobada aad ku daawan doontaan warkana caawa waxaa qayb ka noqon doona dowladda Soomaaliya oo ka hadashay go'aanka maxkamadda ICJ dacwadii muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya oo dib loo dhigay. wararkii ugu dambeeyay xaaladda caabuqa COVID-19 ee Soomaaliya ayaan sidoo kale idiin soo baahin doonaa. sidoo kale warkana ku daawan doontaan burha kaba oo laga mamnuucay isticmaalka mootada feekonta loo yaqaano. xiriirlinta qaranka waxa ay dhoofinta dhuxusha ku tilmaamtay musiibo qaran. madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor uu kulan la qaatay xildhibaanada maamulkaasi Galmudug. wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxay shaacisay kiisas cusub oo la xiriira caabuqa coronavirus. Masuuliyiin Gaaray Degaano Eyku Dagaalamayaan Maleeshiyaad Hubeysan ayaan sidoo kale idiin soo baahin doonaa. waxay qalab looga hortagayo COVID-19 gaarsiisay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulkaasi Hirshabelle. ma dhaba in baaritaan sir ah oo la xiriira coronavirus ay sameysay safaaradda Soomaaliya iyo Kenya. taliyaha ciidanka xoogga dalkan waxa uu kormeeray xerooyin ciidan. qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warkana muuqaal baahiyaha xogta dalka. u diyaar garooba inaad daawataan warkii Ovidson. aynu ku bilownay dowladda Soomaaliya ayaa aqbashay go'aanka dib u dhigista dacwadda badda ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya kadib markii maxkamadda caawa ay ku dhawaaqday go'aan cusub. ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya mar walba ay doonayso in dacwadda la dhageysto xilligii loo qorsheeyay ahayd horaantii bisha soo aadan. waxa uu sidoo kale sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku qasban tahay inay u hoggaansanto amarka dib u dhigista ee ka soo baxay maxkamadda caalamiga. maxkamadda ICJ waxay 15 bisha iyo 18 bisha May 2021 shaacisay in la dhageysan doono doodda dowladda Soomaaliya, iyadoo sidoo kale 17 iyo 19 bisha Maaj ee sanadda soo aadan la dhageysan doono doodda Kenya ee doonista badda Soomaaliya. Soomaaliya ayaa kiiskan markii ugu horeysay u gudbisay maxkamadda sanadkii 2014 iyadoo ka dacwoonaysa Kenya. bishii September ee sanadkii 2019 ayaa la filayay in dacwadda ay furanto, hase yeeshee waxaa dib loogu dhigay codsi ka yimaada Kenya awgeed. bal aan eegno sababta ay doodda muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya dib ugu dhigtay maxkamadda ICJ. maxkamadda ICJ xarunteedu ay tahay magaalada Hague ee dalka Holland waxay ku dhawaaqday in mar kale dib loo dhigay waqtiga dhageysiga dacwadda muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. ICJ oo farigeedu yahay magaalada Hague ee dalka Netherlands ayaa sababta ugu weyn ku sheegtay cudurka COVID-19. war ka soo baxay ay maxkamadda oo la gaarsiiyay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa garsoorka maxkamadda ay ku sheegeen in markii ay dhageysteen codsiga dib u dhigista ee ay gudbisay Kenya sidoo kale ay eegeen xaaladda qayrul caadiga ee sababay xanuunka coronavirus ay go'aansadeen in waqtiga furitaanka dhageysiga kiiska laga dhigo sanadka soo aadan 2021. 15 bisha Maaj ee sanadka dambe ayaa si rasmi ah loo bilaabi doonaa dacwadan sida ay maxkamaddu cadeysay. si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya go'aankeeda ku qotoma soo dhaweynta hadalka ka soo baxay maxkamadda ayaa siyaasiyiin badan ay aad u dhaliileen. wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xaqiijisay kiisas cusub oo la xiriira caabuqa coronavirus in laga diiwaan geliyo gudaha Soomaaliya. wasaaradda caafimaadka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waday dadaalo xooggan oo ay kaga hortagayso in caabuqa COVID-19 uu saameyn ku yeesho gudaha Soomaaliya. dowladda federaalka Soomaaliya oo waday dadaalo ku aadan in caabuqan uusan ka hirgelin gudaha Soomaaliya ayaa maalin walba warbixin maalinle la wadaagta bulshada Soomaaliyeed. wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Fawziya Abikar Nuur ayaa ka warbixisay xaaladaha cusub ee ka soo kordhay caabuqa COVID-19. wasiiradda waxay xaqiijisay maanta 47 xaaladood oo COVID-19 ah. maamulka Puntland ayaa laga xaqiijiyay in laga helay 19 xaaladood. maamulka Somaliland 8 xaaladood ayaa laga helay, halka maamulka gobolka Banaadir laga xaqiijiyay 13 xaaladood iyo maamulka Koonfur Galbeed oo laga xaqiijiyay 7 xaaladood. maamulka Galmudug ayaa laga helay wax xaalada ah maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 19 bisha May. 42 ruux ayaa laba dadka laga helay caabuqan, halka 5 kamid ah ay dhedeg yihiin. 15 ruux ayaa ka bogsatay caabuqa. 2 dhimasho oo cusub ayaa soo kordhay. tirada guud ee laga helay caabuqa COVID-19 ayaa isugu tagtay 1502 ruux, halka bogsashada guud ay marayso 178 ruux. dhimashada guud ayaa gaartay 59 ruux, iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ay soo jeedisay in bulshada ay mas'uuliyad gaar ah ka saarto sidii looga hortagi lahaa faafidda ay caabuqan uu ku sameynayo gudaha Soomaaliya. bal markan aan eegno madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa xarunta madaxtooyada afur sharafeed ugu
sameeyay xildhibaanada Galmudug. Kulankan waxaa goobjoog ka ah madaxweyne ku-xigeenka Mudane Cali Daahir Ciid, wasiirada Galmudug iyo qaar ka mid ah xildhibaanada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaana kulankan ujeedadiisu ay ahayd mahadcelin iyo xoojinta wada shaqaynta xukuumadda iyo baarlamaanka Galmudug. Madaxweynaha ayaa golaha baarlamaanka uga mahadnaqay gudashada waajibaadkooda dastuuriga ee ahaa kalsoonisiinta golaha wasiirada iyo meelmarinta barnaamijka xukuumadda cusub. Madaxweynaha ayaa xusay in gugashiisa dib u heshiisiinta weli furan tahay, isla markaana uu diyaar u yahay qancinta cid kasta oo qabta tabasho macquul ah. Kulanka ayaa la isku dhaafsaday talooyin wax dhisaya, wuxuuna ku soo dhamaaday guul isfaham oo dhex maray labada dhinac. Si kastaba haatee, Axmed Cabdi Kaariye Qorqor, madaxweynaha maamulka Galmudug, ayaa loo arkaa mas'uul ku aastaysan astaan qaran oo Galmudug ay dib u heshay. geesta kalena wafdi uu hogaamiyay senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid, isla markaana ay qayb ka yihiin maamulka gobolka Mudug kan degmada Gaalkacyo, ayaa gaaray deegaanka Tarooge oo saaka ay ku dagaalameen maleeshiyaad ka soo kala jeeda Galmudug iyo Puntland. Mas'uuliyiintan ayaa ku guuleystay hakinta dagaalkan, waxaana la soo warinayaa inay dib u kala rareen ciidamadii dirirta ay u dhaxaysay. duqa degmada Gaalkacyo Mudane Xirsi Yuusuf Barre oo warbaahinta kula hadlay magaalada Gaalkacyo intaysan bixin ka hor ayaa sheegay inay ku baxayaan colaadda dib ugu soo cusboonaatay deegaankaas. Mas'uuliyiinta maanta ku baxay kala celinta maleeshiyaadka dagaalamaya ayaa maalmahan waday dib u heshiisiin looga sameyn lahaa deegaankaasi oo coleediisa ay taagneen toddobaadyadii la soo dhaafay. Galmudug ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay cagaha kula jirtay mushkilad dhanka dagaalada la xiriira maleeshiyaad beelo isku haysta dhulal iyo sidoo kale aanooyin qabiil. dhinaca kalena markaan eegno hay'adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO ayaa maanta qalab caafimaad oo ka kooban maaska afka lagu xirto, gacmo gashi, agabyo kale oo dhammaan looga hortagayo cudurka safmarka ee COVID-19 ku wareejisay wasaaradda caafimaadka Hirshabelle. agabkan oo maanta wasaaradda caafimaadka Hirshabelle kula wareegtay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ay hay'adda ugu talagashay in lagula dagaalamo cudurka corona, maadaama gobolka ay ka jiraan biyo bax kadib markii wabiga Shabeelle uu ku fatahay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdi Macalin Maxamed oo warbaahinta la hadlay ayaa uga mahadceliyay hay'adda WHO deeqda ay soo gaarsiisay, isagoo sheegay inay baahi u qabeen. waxaan uga mahadcelinaynaa deeqdan agabka caafimaad oo ay noo keentay, maxaa yeelay waxa waqtigan aan baahi u qabnay maadaama deegaanada Hirshabelle uu soo gaaray cudurka coronavirus, ayuu yiri wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka Hirshabelle oo ka hadlayay xaaladda adag ee Hirshabelle xilligan ay ka wajahayso dhanka la tacaalidda caabuqa coronavirus, iyadoo maamul goboleedyada qaarkood ay wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha kala taliya Soomaaliya dhanka caafimaadka ku eedeeyaan inaysan xilligan soo gaarsiin gargaarkii ay mudnaayeen. dhinaca kale, maamulka degmada Burhakabe ee gobolka Bay ayaa soo saaray wareegto lagu mamnuucayo mootooyinka loo yaqaan feekonta ee lagu dhex isticmaalo gudaha degmadaasi. kulan ay maanta yeesheen guddiga amniga degmada ayaa lagu sheegay in si ku meel gaar ah loo joojiyay in la isticmaalo mootada leh labada lugood. guddiga ayaa sheegay in maanta wixii ka dambeeya gudaha degmada Burhakabe aanay ka shaqayn karin mootooyinkaas. guddiga ayaa sababaha loo mamnuucay ku sheegay inay tahay arrimo amni, isla markaana dhibaatooyin badan lagu geystay. sidoo kale, ciidanka booliska degmada Burhakabe ayaa howlgal ay sameeyeen ku soo qabtay boqolaal ka mid ah mootada laga mamnuucay degmada Burhakabe ee gobolka Bay. geesta kalena markaan eegno daawadayaal, wararka kale ee caawa aan idiin soo baahinayno waxaa qayb ka ah xeerlaalinta qaranka ayaa dhoofinta dhuxusha ku sheegtay musiibo qaran oo Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyay ka taagneyd. xeerlaaliyaha guud ee qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa ka codsaday hay'adaha ammaanka dowladda Soomaaliya inay ka qayb qaataan baaritaanada shakhsiyaadka lagu eedeeyay inay qayb ka yihiin dhoofinta dhuxusha iyo xaalufinta deegaanka. waxa uu sheegay in xaalufinta deegaanka iyo dhoofinta dhuxusha inay tahay musiibo qaran oo halis ku ah badqabka deegaanka iyo dunyada dalkeena. xafiiska xeerlaalinta guud ee qaranka waxa uu gacanta ku hayaa baaritaano lagu raad joogo ganacsiyo ku lug leh xaalufinta deegaanka, dhoofinta dhuxusha iyo daabulka iyo ka ganacsiga dadka, ayaa lagu yiri war ka soo baxay xafiiska xeerlaaliyaha qaranka. waxaa intaasi lagu sii daray dhammaan laamaha ammaanka, baarista booliska iyo xeerlaalinta guud ee qaranka iyo hay'adaha dalka ee doorka ku leh inay qayb ka qaataan baaritaanada dambiyada ka dhanka dadka iyo deegaanka Soomaaliyeed. dadaaladan ayaa qayb ka ah tallaabooyin lagu sugayo badqabka shacabka iyo bay'ada lagula dagaalamayo dambiyada noocyadan oo kale ah. waxa ugu dambeyntii uu ugu baaqay xeerlaaliyaha shacabka Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan hay'adaha baarista dalka si looga hortago dambiyada lidiga ku ah jiritaankeena, ayuu yiri xeerlaaliyaha guud ee qaranka. ugu dambeyntiina, hooyo u dhalatay dalka Shiinaha ayaa 32 sano kadib heshay wiilkeeda oo laga xaday isagoo 2 jir ah, waxayna sheegtay inaysan mar dambe ka agtagi doonin wiilkeeda ay dib u heshay.
liisinga oo ah hooyada wiilka laga xaday ayaa ka tagtay shaqadeedii markii ay weysay wiilkeeda waxayna raadinaysay muddo 32 sano ah iyadoo boqolaal kun oo qoraalaha u dirtay gobolada dalka Shiinaha isla markaana marka ay ka muuqan jirtay telefishinada iyadoo baafinaysa wiilkeeda 30 sano ee raadinta ay ku jirtay hooyadan ayaa waxaa loo geeyay boqolaal caruur ah oo qoysaskooda laga soo xaday hase yeeshee ciidamada booliska ayaa helay war ah in qoys degan gobolka Xinjiang ay haystaan wiil ay korsadeen 30 sano ka hor baaritaanka dhiigga DNA markii lagu sameeyay wiilkan ayaa lagu ogaaday in uu halka uu ka soo jeedo waxaana dib uu la midoobay waalidiintiisii dhabta ahaa goyna gang oo ah magac ay u baxsadeen qoyska wiilkan soo korsaday ayaa sheegay inuu jecel yahay inuu la noolaado waalidkiisa dhabta ah guud ahaan qiyaare warkii aad ka daawanayseen warbaahinta xogta dalka wanaagaynta si aad u heshaad buuxii warar ay ku soo kordha geyga Soomaalida iyo daafaha caalamka fadlan subscribe saaro channelkeena xogta dalka furo gambaleelka oo rukumo wararkeena iyo muuqaaladeena xiga